assalaamu calaykum mowduuca maanta waxaan ku qaadaa dhigi doonaa Gertrude Bell haweeneydii kala geysay bariga dhexe ku soo dhawaada mowduuca maanta waa tuma Gertrude Bell waa haweeneydii ka dambeysay jaangoynta xuduudda maanta u dhaxaysa Ciraaq iyo Urdun xuduudahaas oo ku timid wadaxaajood Axmar Churchill oo ahaa ra'iisul wasaarihii Britain iyo hogaamiyaashii Carbeed waa qoraa socoto sarkaal siyaasi ah maamule basaasad iyo aqoon-yahano dagaalbaadhisad amarka joorjiyad sahmiya ah Gertrude Margaret Lothian Bell oo loo yaqaano Queen of Desert ama boqoradii saxara ahayd waa gabar Ingiriisada ku dhalatay 14 Juulaay 1868 deegaanka Durham ee cariga Ingiriiska qoyskoodu wuxuu ahaa hantiile waxayna fursad u heshay inay waxbarasho heer sare hesho shakhsiyadeedu waxaa lagu sheegaa inay ahayd qof fircoon mar walbana haraad u qabtay xog raadinta taasina waxay qaabaysay nolosheeda oo dhan awgeed wuxuu ahaa Sir Isaac Lothian Bell wuxuu lahaa warshad macdanta soo saarta wuxuuna ka mid ahaa xubin ka tirsan baarlamaanka xisbiga liberaalka ee Benjamin Disraeli xilligiisii labaad hooyadeed Marshall Bell waxay ku dhimatay 1871 Gertrude Bell oo xilligaa jirtay 3 sano oo kaliya rajanimadeedu waxay u horseeday inay xidhiidh la yeelato aabaheed Sir Half Bell waxaana la sheegaa in dhimashada hooyadeed ay u keentay dhaawac hoose carruurnimada ah ayna dareemi jirtay mararka qaar murugo iyo wehel la'aan laakiin Gertrude Bell markii ay noqotay 7 sano jir aabaheed waxa uu guursaday gabadha lagu magacaabo Florence Bell taasoo ahayd qoraa qorta sheekooyinka carruurta Gertrude Bell waxay waxbarashadeeda ka bilowday Queen's College oo ku yaal London markii dambena waxay kaga sii gudubtay Lady Margaret Hall oo ka tirsan jaamacadda Oxford iyadoo markaas 17 sano jir ah waayahaas dambe dumarka waxaa loo ogolaa barashada taariikhda oo kaliya iyadana xoogga ayay saartay taariikhda waxayna kaga baxday jaamacadda Oxford darajada heerka koowaad ee aqoonta taariikhda waxayna waqtigeeda ku lumin jirtay xafladaha ciyaaraha qaar ogaagaas aan lagu aqoon gabdhaha sida buurafuulka iyadoo haatan ay jirto buur magaceeda wadato oo ku taala degmada Bern ee dalka Switzerland Gertrude Bell weligeed ma aynan guursan ubadna ma ay dhalin balse waxay xiriir aan qeexnayn la lahayd Major Charles oo ah korneyl Ingiriis ah oo isdhaafsadeen waraaqo jecel laga soo bilaabo sanadii 1913 ilaa 1915 waxaa la sheegaa in inta badan nolosheeda ay ku qaadatay sida wadankeeda Ingiriiska uga dhigi lahayd ka adduunka ku doobiya adeerkeed waxa uu ahaa Sir Frank Lascelles oo ahaa danjiraha Ingiriiska u fadhiyay Persia ayay ku soo booqatay magaalada Dahran ee dalka Iiraan sanadii 1892 waxayna ku qeexday safarkaas ay u gashay Iiraan buuggeeda sawirada ee Persian Pictures Gertrude Bell waxay ku hadli jirtay luqadaha kala ah Farisiga Faransiiska Jarmalka Carabiga Talyaaniga iyo afkii Cusmaaniyiinta ee Turkida intaasna waxaa u sii dheeraa luqadeeda hooyo ee Ingiriisiga sanadii 1899 Gertrude Bell waxay u kixitay safar ay ku tagaysay bariga dhexe waxaana la sheegaa in bariga dhexe ay u safartay gudaha 6 jeer 12 sano gudahood waxayna ogaal wanaagsan u yeelatay bariga dhexe iyadoo awood u yeelatay inay dhex gasho bulshadii Carbeed ee xilliga bartamihii December 1913 ayay Gertrude Bell markii ugu horeysay soo caadhigatay magaalada Dimashq markii dambena waxay kaga sii gudubtay magaalada Xaa'il ee waqooyiga Sacuudiga iyadoo iska dhigaysa dagaalbaarisad sahmiye ah qorshaheeduna ahaa inay soo basaasto awoodda qoyska Al-Rashid ee xukumayay magaalada Xaa'il muddo kadib waxaa qoyskii Al-Rashid xukunka laga tooray qorshe ay xogaha Gertrude Bell u dhaxaad u ahaayeen fulintiisana uu lahaa wiil la yiraahdo Cabdicasiis Aal Sacuud amiirkii deegaanka Naajid ee waqtigaas oo waadama Carab iyo Cajab u aqoonsan doonaan aasaasihii dawladda Sacuudiyiinta muddo kadib waxaa dhacday in Gertrude Bell jidgooyo lagu soo afduubay u dhigaan qoyskii Al-Rashid xabsi gurina ay ku rideen muddo gaaraysa 12 maalmood balse hawsheedu halka kuma aysan joogsan oo waxay xogo badan oo sirdoon kuna saabsan qoyska Al-Rashid ku guuleystay inay ka hesho goobaha cawaysinka markii sidaa loo sii daayana waxay u kicintay magaalada Baghdad waxayna uga sii gudubtay magaalada Dimashq halkaas ay uga sii talaawday London gaaristeedii London waxaa abaalmarisay hay'adda boqortooyada arrimaha juqraafiyada iyadoo la guddoonsiiyay bilad dahab ah lana boogaadiyay socdaalkeedii saxaraha ee la yaabka lahaa waqtigaas Ingiriisku wuxuu dagaalo ba'an kula jiray dawladdii Cusmaaniyiinta oo xulafo la ahayd Jarmalka
1915 waxaa qarxay dagaalkii Masiiriga ee Gallipoli oo dhex maray Ingiriiska iyo Faransiiska oo hal dhinac ah iyo dowladdii Cusmaaniyiinta oo dhinaca kale ah, balse dagaalka waxaa guuldaro weyn dhabarka loo saaray Ingiriiska iyo xulafadiisa, waxayna guusha ku raacday dowladdii Cusmaaniyiinta. guuldarada soo gaartay Ingiriiska ayaa ku qasabtay inuu Ingiriisku gebi ahaanba bedelo kaartadiisa dagaal, oo xilliga carabta ayaa u muuqday kuwo laga heli karo fursad dahabi ah iyadoo loo adeegsan karo laguna dhufan karo dowladdii Cusmaaniyiinta ee Turkida. waxaa isla markaasi keliisa usoo ifbaxay baahida loo qabo dagaalbaadhayaashii ama arkeolojistayaashii sahmiyaasha ah ee ku foognaa arrimaha Carbeed. dagaalkaas Britain sida baan lagu jebiyey waxa uu saameyn weyn ku lahaa Gartuuda Bell oo waxa uga dhignaa gabagabada rasmiga ee habnololeedkeedii sida dabiiciga u nooleed, iyadoo dagaalkaas lagu dilay Cornel Charles Welles oo ahaa gacaliyaheedii, waxayna caro weyn u qaaday dowladdii Cusmaaniyiinta, iyadoo calaacalaysa kana tiirayoonaysa dilka gacaliyaheeda ay u geysteen Cusmaaniyiintii dagaalkii Gallipoli ayaa tidhi, adigoo iga fog ma jirto haba yaraatee waxna siina aan dareemayo. nolosheeda la'aanta waa sida debka, aniguna debkaas ayaan ku gubanayaa. muddo badan oo ay Gartuuda Bell ku nooleed bariga dhexana waxay ogaal wanaagsan u yeelatay qabiilada Carabta ee deegaanadooda. waxay Gartuuda Bell ku hanan jirtay Carabta iyadoo ka mari jirtay qabiil kasta dhanka madaxweyntiisa iyo salaadiintiisa. haweenkeeduna waxay u keeni jirtay hadiyado qaali ah, kadibna qabiil kasta iyada u raxlayn jiray, iyadoo iska dhigi jirtay in danahooda ka shaqaynaysa. waxayna israaci jireen iskana agdhawaayeen dhanka afkaarta iyo howlgallada isdhaafsan jireen ninkii carab qiyaameeyey ee Lawrence al-Carab. waxayna ahayd gabadhii dejisay qariiradihii u sahlay in ciidanka Ingiriisku qabsadaan Baghdad. kaalinta Carabta ka kasbatana waxay gaartay inay u bixiyaan hooyadii Carabta iyo Ummul-Mu'miniin, xilli boqor Faysalkii Ciraaqna ugu yeeri jiray walaasheeyey. sannadii 1925 Gartuuda Bell waxay ku laabatay dhanka iyo London iyadoo wajahday dhibaatooyin dhanka qoyska, kadibna Baghdad ayay dib ugu laabatay. xanuun dhanka isanbadana aad u qabtay, balse way ka caafimaaday. haddii aan intaas kaga nimaano gabadhan taariikhdeeda shakhsiyadeed, aan u nimaano gardaamooyinkii ay caalamka islaamka ka geysatay, waxaa caan ah in maanta xuduudaha bariga dhexe ee degsan ay dalalka ku kala qaybsan yihiin lagu sameeyey heshiiskii qarsoodiga ee Sykes-Picot, kaasoo ay kala siixdeen wasiirada arrimaha dibadda ee Ingiriiska iyo Faransiiska. balsadan ayaa ka dambeysay khaasatan jaangooynta xuduudda maanta u dhexeysa Ciraaq iyo Urdun, waxayna heebsasad heer sare oo ku barbarshaqaysay ninkii ku magac dheeraa Lawrence al-Carab ee Carabta iyo Cusmaaniyiinta afka isu geliyey, kana dambeeyey kacdoonkii weynaa ee Carabta ee ka dhanka ahaa dowladdii Cusmaaniyiinta. markii iyaga iyo khilaafadoodii kala dilayna dhulkoodii reer galbeed gacanta ku dhigay, waxayna aad uga shaqaysay in Carabta oo ahayd awal hal dal oo muslim ah laguna soo galo baasaboorka qofka inuu yahay muslim ay ka dhigto mid ku kala qaybsan boqorro iyo xadsoodnimo ay u sawirtay. haweeneydan ayaa ka dambeysay fikirka in Ciraaq loo sameeyo xukuumad ku dhisan boqortooyo, oo tarqiinada qaar ayaa sheegay in fikirka caleemasaarka boqor Faysalkii koowaad ama Faysal bin Xuseen al-Haashimi laga dhigo boqorkii Ciraaq ay Gartuuda Bell ka dambeysay. dagaalbaadhisii jaajusnimo ay ku jirtayna waxay ku martay deegaanada Kurdiyiinta, waxayna ogaatay in intooda badan ay yihiin muslimiin oo ay shiicadu ku yar tahay, aadna diintooda ugu adag yihiin, dhankeedana aan laga marayn. waxayna socdaalkaas ku ogaatay inaan loo babacday dhigi karayn haddii ummaddan jiritaan gooni ah yeeshaan. waxayna geed dheer iyo geed gaaban u fuushay siday Kurdidu u kala ilaalin lahayd iyaga iyo midnimo, iyaga iyo jiritaan, iyaga iyo Kurdistaanta ilaa haddana ay ku riyoonayaan. qorshihii gabadhan dejisan ee Ingiriisku sidiisa u fuliyeyna waxay noqday in deegaanka Kurdiyiinta ee Kurdistaan ay u kala qaybiso 4 dal oo ah Turkiga, Suuriya, Ciraaq iyo Iiraan. dabayaaqadii 1926 ayaa la arkay Gartuuda Bell oo meyd ah. markii la baalana waxaa la ogaaday inay u dhimatay kaniinka hurdada oo ay xoogaa in ka badan intii loogu talagalay cuntay, waxaana la kala garan waayey inay kama u cuntay iyo inay isku dilaysay. waxaana lagu aasay Baghdad, aaskeediina xitaa waxaa ka soo qaybgalay boqor Faysalkii Ciraaq. kadib geeridii gabadhan waxaa laga sameeyey dhowr filin oo ay uga caansan yihiin Queen of Desert oo soo baxay 2015 iyo Letters from Baghdad oo soo baxay 2016. haddaba daawada intaas waxaan ku afmeerayaa
macluumaadkii koobnaa aan uga hadlayay Gertrude Bell tan intaan ku kulmi doono mowduuceena xiga sidaas iyo nabadgelyo